على محمد maanta waxaanu isugu nimi session kan gabagabadiisii oo soo socday 6 cisho 6dan cisho waxay gundig u ahayd iyo gabagabo shaqo soo socotay almost 1 year iyo ka badan Allahumma salli ala Muhammad activity-gan aynu wadnay maanta wuxuu ahaa in work plan loo sameeyo LCE-gi Arori Livestock Center of Excellence iyo at the same time aynu sameeyno aynu launch karayna ama aynu soo bandhigno materialkii hagayay shaqadooda hadii alla ka dhigo agaasimo guud materialkani process bay soo mareen ka bilaabmay data analysis iyo data collection ka soo bilaabmay oo inta centerkii la tagay Allahumma salli ala Muhammad wixii suuragal ah iyo Allahumma salli ala Muhammad wixii ka qabsoomi kara la soo eegay capacity-gooda la soo assess gareeyay meelaha ka maqan iyo wixii taakula ay u baahan yihiin la soo eegay kadibna lala barbar dhigay centerada la midka ah ee rangareeya Center of Excellence-ka ama research centers-ka ka jira adduunka iyo capacity-ga functions-ka ay u baahan yihiin si ay u shaqeeyaan kadibna dib baan u recontextualize gareynay si ay ula hana qaadi karaan de Allahumma salli ala Muhammad facilities-ka ama support-ka dalkeena yaala material-kan agaasimo guud waxay ka kooban yihiin 3 baan isugu ururinay marka hore 7 material buugo kala duwan bay haayeen hadda waxaanu ka dhignay 3 saddexdaas waxay ka kooban yihiin management guidelines oo koobsanaya Allahumma salli ala Muhammad organizational structure-kii iyo organizational development-kii analyze gareynaya modeliska maamul ee loogu talagalay LCE-ga iyo kuwa suuragalka ah kuwa aan suuragalka ahayn iyo mid kasta wuxuu u baahan yahay 7-6 model meelaha ayaanu ku analyze gareynay xagga dambana sustainability-ga centerka at the end of the day waxaan rabnaa inay ahaato self Allahumma salli ala Muhammad support inay ahaato ama self reliance oo iyadu ay soo saarto wixii meaniska ay ku shaqeyn lahayd marka sustainability-ga anagoo eegayna revenue-gi anagoo eegayna Allahumma salli ala Muhammad itemyadii products-ka ay soo saari kari lahayd haday tahay caws haday tahay seed haday tahay Allahumma salli ala Muhammad ereyooyinka kalaba ayaan ku analyze gareynay kaasi waa one book marka buugga labaad wuxuu ka sheekeynayaa finance-kii iyo human resource-kii iyo Allahumma salli ala Muhammad procurement-kii guidelines-kii iyaga laftooda waxaanu ku tolay shuruucda Somaliland dawladda Somaliland sharciga baynu leenahay markay noqoto finance-ka markay noqoto procurement-ka markay noqoto human resource-ka marka si ay center-ku la mid noqdaan kuwii qaranka ayaanu tailor kaga dhignay Allahumma salli ala Muhammad ka saddexaadna wuxuu sheegayaa waa research policy iyo procedure-kii sida research-adu sameeyeen material-kan agaasimo guud saan hore soo sheegay markaan anagu kaliya iskumaanaan koobeen markaan draft gareynay tiimamka wasaaraddan loo share gareynay iyagoo sample baan daabacnay mar hore dumi sample ah waanu soo present gareynay comments baan la soo siiyay comments-ka waxa kamid ahaa material-ka inaan dib u combine gareyno inaanu Allahumma salli ala Muhammad logooyinka iyo shacaarka dawladdu inuu ka muuqdo wixii wax dawladdu leedahay uu ahaado waxa kale oo kamid ahaa Allahumma salli ala Muhammad fonts-ka iyo farta laftooda aan isticmaalaynay marka kan laftiisu waxa weeye waanada dumi sample kan markaynu approve gareyno launch gareyno hadii alla ka dhigo waxaanu ka daabici doonaa cotton book midkiiba hadii alla ka dhigo iyadoo loo qaybin doono centerkana ay ahaanayso priority ay leedahay haddana cidii kale ee centerada kale aad ku establish gareynaysan dalka waxa weeye loo adeegsan karo ay ka faa'iidi karaan hadii alla ka dhigo halahaasa ayaan ku soo koobaya Allahumma salli ala Muhammad agaasimo guud bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 8 bishii 8 2023 waxaynu halkan ku daafuranaa 7 bishii 8 waxaynu maanta ku daafuranaa documentiskii ama buugagtii loogu talagalay in lagu wado ama lagu maamulo mashruuca xarunta seeraha Arori xarunta horumarinta xoolaha ee seeraha Arori waxaan mahad gaar u celinayaa wasaaradda oo aasaaskii xaruntan muddo badan soo waday waxaan mahad kale u celinayaa maxay qolada Brimo oo ayana nagala qayb qaadatay soo saaridda documentskan waxa kale oo ayana mahad gaar leh SDF oo fankeeda bixisay iyo sidii loo sameyn lahaa documentkan wuxuu ka seera ahaan anaga ka xarun ahaan wuxuu naga caawinayaa inaanu meeshii maamulkeeda hagaajino inaanu helo guidelines aan raacno aanu ku soo saarno research
iyo wixii aan kula xiriirnay dawladda iyo dadweynaha kale aan u shaqeynaba marka dhamaantiin waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum dhamaantiin. agaasimo guud madaxda ka socota hay'adda Brimo iyo saraakiisha ka socota wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga. mudane agaasimo guud waxaan maanta halkan u joognaa munaasabad aynu ku iba furayno shaqo soo socotay muddo 12 sano ah 12 bilood ah taasoo qayb ka ahayd shaqadii mashruucan horumarinta wax soo saarka iyo horumarinta iyo xoojinta caafimaadka xooluhu qabanayay gaar ahaan xarunta Aroori. mudane agaasimo guud maalinkii aynu mashruucan daafuraynay fariintii wasaaraddu ay u soo gudbisay shaqaalaha mashruuca iyo shaqaalaha Arooriba waxa ahayd sidii xarunta looga dhigi lahaa xarun ay u dhameystiran yihiin dhammaan waxyaabihii u fududeyn lahaa inay shaqadooda ay gudato. iyadoo tii laga duulayo waxa mashruucan u suuro galay sidii qorshuhu uu ahaa in la soo saaro dhammaan habraacyadii iyo tilmaamihii ay xaruntani ay ku shaqeyn lahayd. waayo shaqo kasta oo la qabanaya marka hore waxay ka bilaabantaa in loo sameeyo miqyaas loo raaco iyo nidaam loo raaco. marka alxamdulillah maanta dhammaan dokumentiyadii iyo standardskii qaran ee loo baahnaa waa u diyaar. waxa ay sugayaan waxa weeyaan sidii loogu adeegsan lahaa fulintooda iyo dabaqidooda. shaqada waxaa gacan weyn ka geystay khubarada ka socda Brimo oo lagu siiyey qandaraas inay hawsha ay naga gacan siiyaan oo ay soo curintooda iyo isku dawridkooda ay ka shaqeeyaan gaar ahaan ninka khabiirka ay u qaabilsan ee Simon Kuria. waxaa sidoo kale gacan weyn ka geystay oo lama ilaawaana shaqaalaha xarunta Aroori oo uu hormuud u yahay Dr. Cabdiweli iyo tiimkiisa. sida runtii waxaan oran karaa waa meel wanaagsan oo wax laga sii qaadi karo xarumaha kale ee la midka ah ee ay niyada ku hayno inay waddanka ka sameynana u noqonaya meel looga qiyaas qaato oo ay kaga daydaan dhammaan protocolska iyo nidaamka maaragtay loo maro ee maaragtay loo develop gareeyo xarumo noocan oo kale ah. xaruntan oo markii hore ahayd xarun loogu talagalay inay wax ka qabato ganacsiga xoolaha dhoofiya iyo sidoo kale inay maaragtay abaaraha soo noqonaya wax ka qabato. sidoo kale waxaa muhiim ah in lagu daray qayb kale iyaduna maaragtay kobcinta iyo wax soo saarka xoolaha inay ka shaqeyso ah. sidoo kale inay xaruntan awood u yeelato inay sameyso cilmi baadhis ku saabsan caqabadaha wax soo saarka xoolaha iyo horumarintooda hortaagan oo ay noqoto xaruntii keeni lahayd talooyinkii iyo qorshayaashii iyo tabihii aynu ku horumarin lahayn xoolaheena wax soo saarkooda caafimaadkooda daryeelkooda iyo ganacsigoodaba. sidaa daraaddeed alxamdulillah maanta ayay hawshaasi inoo qabsoontay. sida horteena ka muuqatana dokumentiyadii oo wada diyaarsan iyo sidoo kale shaqaalihii oo diyaariyey qorshe hawleedkii ugu horreeyey ee maaragtay ku shaqeyn lahaayeen. insha allah waxaan rajeynayaa sanad dambana inaynu waqtigiisa isku iman doono iyaga oo resultigii ama natiijadii midhihii la beeray la goosanayo. marka intaasaan hadalkayga kusoo afjarayaa. waxaan u mahadnaqayaa ilaahay ka sokow tiimka xarunta Aroori, tiimka Brimo Consulting iyo agaasimaha guud iyo wasiirka iyo dhammaan saraakiisha wasaaradda oo hawshan iyaguna qaybtooda lixaad kale ku lahaa. wixii magaranaysaa la wada qabto ee hore la iska taago ayaana wax noqda marka loo shaqeynayo maaragtay sidii tiim oo kale. marka intaasaan kusoo afjarayaa. kusoo dhow. Assalaamu calaykum. Producing the management guidelines, the operation manuals. It is now my pleasure to hand over these documents to you on behalf of the Ministry of Livestock and Fishery Development of the Government of Somaliland for implementation by your technical team at the LCE as they grow and help the ministry realize the dream of converting that center to a center of excellence
for the benefit of the people of Walori and Somaliland as a country. Thank you very much. You're welcome. Thank you. runtii sharaf weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo hawshan loogu sameynayay habraacyada shaqo ee xarunta Aroori ee wax soo saarka iyo caafimaadka xoolahaba. Run ahaantii fikirkani muddo ayaa laga soo shaqeynayay kadib markii aanu ka wasaarad ahaan madaxda sare iyo inta ku shaqada leh aanu isu nimi ayuu fikirkani ka yimi in la helo bal weygii loo mari lahaa ama wadooyinka la raaci lahaa si centerkani uu u noqdo center ballaaran maadaama aanu waddanka lahayn centerro noocan oo kale ah. centerkani runtii sidii loo waday waxay ahayd inuu noqdo center caalami ah. markaa annagoo kaashanayna wasaaradda oo kaashanaysa SDF waxaa markaa nasiib u yeeshay hawshan inay fuliyaan Brimo Consultant oo runtii dhammaan iyo shaqaalihii ama muxuu ahaa howlwadeenadii Aroori in la soo saaro habraacyadan mustaqbalka lagu shaqayn doono oo ugu horeeyo qorshihii lagu hagi lahaa xaruntaasi ay ku xigto sidii loo maamuli lahaa oo ay ka mid yihiin xaggii shaqaalaha xagga dhaqaalaha iyo xag walbaba. run ahaantii xaruntu waxay noqonaysaa xarun baadhis halkan kama madhna habraacyada lasoo saaray research ama sidii wax baadhis loo sameyn lahaa. run ahaantii waxaan aada ugu mahad celinayaa tiimkan ka socda Brimo Consultant oo uu hogaaminayo Dr. Simon oo run ahaantii effort badan geliyey ama hawl badan geliyey. qoladiinan centerka Aroori ka shaqeysa waxaa laydinkaga baahan yahay inaad ka mira dhalisaan documentiga yaanu inaga noqon documenti inta la qoro dee shelfiska aanu ku xaraysano. waxaan rajaynayaa in documentiga aad ka shaqaysiin doontaan anoo ku kalsoon aqoontiina iyo qaybtii aad ka qaadateen soo saaridda documentigan laftirkii. waxaan idin rajaynayaa in sanadka dambe hadduu alla yidhaahdo marka aanu samaynayno ka kale inaynan u baahan cid kale oo macnaha kubadda idinka xaggiina loo soo wareejiyey aad idinku soo saartaan wixii imika ka dambeeya. waayo santarrada wasaaraddu ay ku tala jirto ma aha santarkan oo qura ah, santarro badan baa jira, mid wajaalaa jira laftirkiisa. documentigan wuxuu naga anfici doonaa ma aha Aroori oo qura, wuxuu naga anfici doonaa dhammaan santarrada ay ku tala jirto wasaaraddu inay horumariso si waddankani oo horumar u gaaro loona helo cad iyo caana caafimaad qaba insha allah. marka waxaan idiin rajaynayaa guul insha allahu tacaala. saasuna shirkii ama trainingkii socday 6 cishana maanta halkaasaanu kusoo gebagabeynay. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.